Moogtahay inay jirto magaalo lagu tilmaamo wadnaha Soomaaliya isla markaana ah magaalada ugu weyn uguna muhiimsan dalka. ka hor intaynaan bilaabin haylow like saarta muuqaalka kana mid noqota asxaabta kanaalka. magaaladan waxaa lagu magacaabaa Muqdisho, waa caasimadda Soomaaliya waana magaalada ugu weyn dalka. waxay ku taalaa xeebta badweynta Hindiya waxaana lagu tiriyaa albaabka ugu muhiimsan ee Soomaaliya u fura dunida inteeda kale. baaxadda dhulka ay ku fadhidaa wuxuu gaarayaa 370 kilomitir square iyadoo ay ku nool yihiin malaayiin qof oo ka kala yimid dhammaan gobollada Soomaaliya. Muqdisho waa xarunta ugu weyn ee siyaasadda dalka, waana halka ay ku yaalaan madaxtooyada, baarlamaanka, wasaaradaha dawliga iyo xarumaha hay'adaha caalamiga. go'aanada ugu muhiimsan ee Soomaaliya khuseeyana inta badan halkan ayaa laga gaadhaa. markaad dhex marto Muqdisho waxaad arkaysaa magaalo si xawli isu bedelaysa, dhismayaal cusub, wadooyin casriya, xarumo ganacsi iyo maalgashi sii kordhaya ayaa ka muuqda qaybo badan oo magaalada ah. Muqdisho sidoo kale waa xarunta dhaqaalaha ee dalka. dekedda Muqdisho ayaa ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan Geeska Afrika, iyadoo maalin kasta ay ka soo degaan amba ay ka baxaan badeecooyin kala duwan. ganacsato badan ayaa magaalada u yimaada si ay uga faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee ka jira. xeebaha quruxda badan ee Muqdisho ayaa iyaguna ah astaan gaar ah. biyaha buluugga iyo ciidda cad ayaa magaalada ka dhigaysa mid ka mid ah magaalooyinka xeebaha leh ee ugu quruxda badan Afrika, waxaana sanad kasta booqda kumanaan qof. laakiin waxa ugu yaabka badan ayaa in Muqdisho ay tahay magaalo ka soo kabanaysa burburkii dagaaladii sokeeye iyo qaraxyadii ay la kulmaysay in ka badan 30 sano. inkastoo ay soo martay waqtiyo adag, haddana maanta waxaa si weyn ugu socda dib u dhis, horumar iyo maalgashi cusub. meelo badan oo markii hore burbursan ayaa hadda isu bedelay xaafado casriya, hoteello waaweyn iyo xarumo ganacsi. dhanka waxbarashada iyo caafimaadka, Muqdisho waxay hoy u tahay jaamacado iyo isbitaallo iyo xarumo adeegyo muhiima bixiya, kuwaasoo u adeega kumanaan qof maalin kaste. maanta Muqdisho ma ahan oo keliya caasimadda Soomaaliya, balse waa astaan muujinaysa adkeysiga shacabka Soomaaliyeed. waana magaalo ka soo kacda caqabado waaweyn, haddana si tartiib tartiiba dib ugu hananaysa kaalinteedii ahayd xarunta ugu muhiimsan ee Soomaaliya iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu saamaynta badan Geeska Afrika. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, magaaladan hore ma u booqatay? qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.